6 qodob oo idin fududeynaya inaad buugaaga aad ku dhammaystiri karto ood ku qori karto. haddii kalena oonad weli waxba qorina ood rabto inaad qoraa noqotid, 6 qodob waxaan isleeyahay waxbay kaa caawin doontaa insha allah. qodobka horeeya waxa weeyaan intaanad horta wax qorin waa inaad horta wax akhrido. qofka wax doonaya inuu qoro oo qoraa uu noqdo horta waa qof wax akhriya. akhriskaasi muxuu fududeydinayaa? akhriskaasi wuxuu kuu fududeydinayaa horta marka ugu horeysa inaad aqoon ku yeelato. so qofku markuu wax akhriyo information buu helayaa, aqoontaadiibaa ayaa kordhaysa. arrinta kale muhiimkee akhriska laga helaana waxa weeyaan inuu maskaxda u yahay jimicsi. tusaale yar baan ku siinayaa. maad aragteen dadka orda intayna stadiumka soo gelin oo dadkii meesha ka wada daawanayayna arkin una tartankii dhicin, maxaa dhaca? waxa dhacda horta inay stadiumka imaadaan saacado ka hor intuuna bilaabin tartanku. maxay uga jeedaan? waxay uga jeedaan shirkani markay gurigooda kasoo baxayeen intay soo socdeen, shirkani wuu iska qaboobaa, dhiigani wuu iska qaboobaa. marka uma diyaarsano inuu qofkaasi ordo. trainingii wiigan soo qaadanayay kastuu qofkii garanayo, haddana xalay wuu seexday, marka jirkani wuu qaboobay. qofku markuu ordayo wuxuu u baahan yahay dhiigan inuu yaro kululaado, yaro kaco, markaasuu tartanka gelaya. marka maskaxduna waa saas oo kale, micsigu jirku u baahan yahay ayay maskaxduna u baahan tahay. qofku wax qoraya waa inuu horta wax akhriyo. qodobka labaad waxa weeyaan inuusan jirin wax ku mashquulinaya. maskaxda hadduu buuq ku jiro, haddii cadhar ku jirto, haddaad wax ka fikirayso, haddii aad balaanyada aad leedahay, qorshooyinka aad leedahay maskaxda aad ku hayso, maskaxdani kuuma sahlayso waxaanaad qorayso inay focus ka saarto. waxaa qoraysid 100% kuma ahaanaysid, waxyaalahan kale kaa dhex guuxaya ayaa ku mashquulinaya. marka qodobka labaad aad bay muhiim u tahay, mar kasta ood fikir hesho maskaxdaa ku dhexaysani qoro, meel ku qoro. mar kasta ood balaan leedahood is leedahay beritoole arrintaasaan raba inaan sameeyo, ama wiigan dhexdiisa arrintaasaan sameynaya, wiigan dhexdiisa qofkaasaan caawinaya, wiigan dhexdiisa ilmahayga arrintaa u qabanaya, maskaxdaa ku haysanin qor. maskaxda waxa ugu daranu shayga aan weli la xalin, maskaxda ma iloobo. maskaxda waxay ilowdaa oy meel ku xeraysaa, khaanadeer ku xeraysaa arrintay garanaysay si fiican u xalisay, happy bay ku tahay, meel buu ku xeranaya. laakiin arrintuuna garanayn oo ku jadiida maanta dhan buu ka fikirayaa. maskaxdeenan actionka lagu talagalay inaad wax kaga fikirta aad qabanayso. so wixii aanad weli gaadhin ood aad qabanayso maskaxda u mashquulinaya. that's why baanad markaad wax u qorayso aanad 100% focus u hayne erayadii aad qori lahayd, fikradii aad heli lahayd, sheekadana ka sheekeynaysa sidaad u macaaneyn lahayd ma kuu noqonayso haddaad waxyaalo kale maskaxda ku haysid. so haddii aad fikir hesho, haddaad bayaan leedahay, haddii uu jiro arrimo aad xalinayso, maskaxdaa ku haysani, maskaxda faaruqi, qor. waxaa maskaxda ku soo dhaca qor. qofka qoraagii waa qof bulshada ku dhex jira, ka warhaya. kama dhigno meel kasta ku boodbood oo dafdaftaadu ha badato oo dadka dhex boodbood, dadka maanta oo dhan sheekadooda dhegeyso. maya, waxaan uga jeedaa bulshada waa inaad lugtaadu ay kula dhex jirto xabadi ood la socoto newska maanta, maxaa waxyaalaha dhaca, waxyaalaha waddanka kusoo kordha, waxyaalaha bulshada kusoo kordha, waxyaalaha adigu wax walba oo bulshada ku saabsan. qasab maaha inaad ogaato, laakiin waxyaalaha muhiimka waa inaad la socoto, waayo arrimahaasi waxay ku siinayaan fikrado, ayay ku siinayaan kuu sahli kara. laga yaabaa one day topic aad ka sheekeynayso ood wax ka qorayso, qofka aad buugan ka qorayso dabeecadihiisa haddaad rabto inaad wax tusaale kasoo qaadato, arrin bulshada aad ka aragtay amba ku badan baabaad ka dhigi kartaa karakterka. marka qofka wax qoraya kulle waa qof bulshadana ka warhaya. taasna waxaa kuusii dheer inaad caalamka newskiisa la socoto, wadanada technologiga maxaa soo biiray, maxaa halkan ka dhaca, say wax u jiraan. waqtigaagoo dhan ha ku dhammaynin, laakiin haddana waa inuu jiri karo 5 mirir amba 10 mirir ood newska yara akhrisan karto, maanta maxaa caalamka kusoo kordhay. qoraagu amba qofka raba in wax qoro waa qof naftiisu ay degan tahay, walow uu jiro wax ka guuxaya, waxaa ka guuxayana uu doonayo inuu buug ku dhex qoro, haddana
sibay naftiisa u degan tahay. Qoraagu waa qof noloshiisu nidaamsan tahay. nidaamka maxaan ka wadaa? waxaan ka wadaa subaxda markaad soo toosto kubaayadaadi shaaxu xaggu kaa xiga waad ogtahay, dharkaad maanta gashanayso xaggu kaa xiga waad ogtahay, kabahaagu halku yaalo waad ogtahay, saaka waxaad ku qureecan lahayd fikradeedii xalay baad sii haysiyo saaka qurac yar baad ku tuuranaysaa. guriga xataa ka baxdo waad ogtahay halkaad u socoto, xilligaad tegayso, xilligaad soo noqonayso. qadartu way jirtaa, waxyaalo kaasoo dhexgeli karaa wuu jiraa. haddana waxaad tahay qof nidaamsanoo balaan ku socda. qofka qoraagii ma aha qof boodbooda, maanta halkan bood, maanta halkan may. waxa weeyaan waa nidaam weeyaan. marka nolosha qofka qoraagi waa nolol degan, waa qof caafimaadkiisa warka haya. haddaanad caafimaad qabin maskaxdan waxba ma kula qabanayso. qoraagu waa qof fursad kastuu helo ka faa'iidaysta. maanta hadduu jaanis u helo inuu dalxiiso u dalxiis tagaya, amba hadduuna jaanis ka haysan isagaaba samaysanaya inuu dalxiis tago. waa qof firfircoon, waa qof maanta magaalada meel kastoo qurux badan soo daawanaya. qoraagu wuxuu u baahanya mar walba maskaxdiisa inuu siiyo cunto. soo calooshin cunto uma baahna, maskaxda qoraaguna cunto u baahanya. wuxuu soo tusayaa meelo qurqurux badan, kalaro qurqurux badan, dad buu soo arkayaa, dad buu soo baranayaa, meeluu wax kasoo dhageysanayaa fiican oo naftiisa wax u taraya. of course waa qof maskaxdan waxyaalo cusub soo tusaya, because maskaxdaada markaad wax cusub ku shubto wax cusub bay ku siinaysaa. marka qoraagu waa qof jaanis walbuu helo kaga faa'iidaysanaya inuu maskaxdiisa wax qurux badan soo tuso. hadday dalxiis tahay, hadday meel yaroo laga soo cunteynaya tahay, haddii meel lecture laga soo dhageysanaya tahay, haddii ay tahay meel yaroo dooga. adigu indhahan wax qurux badan buu soo tusaa si uu maskaxda ugu shubo. adiga maanta dhageysanaya haddaad doonsina qoraan noqotid, waa inay kuu kala caddaan karto family time, me time. me time-ku qofku markuu isagu naftiisa waqti la qaadanayo, bulshada xilliga aad rabto inaad caawiso aad waqti u hesho, wayna waxyaalahaasi kuu kala caddaan karaan. ya taasi markay kuu kala caddahay, meesha waxa kasoo dhex baxayood ka heli kartaa waqtiyo aad wax qorto. marka qofka qoraagii amba qoraaga raba inuu noqdo, waxa u sahlay inuu qoro sheekadu qorayo amba buugu qorayo. waxa u sahlaya inay waqtigiisa u kala cad yihiin wuxuu qabanayo. so qofku waa inuu waqtigiisa u kala caddaan karo. okay, waqtiyadu markay ku kala cad yihiin ay wax ku kala nidaamsan yihiin, ogtahay maanta waxaan rabaa inaan sameeyo kan kale sameeyo, haddii xitaa wax kaasoo dhex galaan alxamdulilah dhib ma lahan. haddana halkaa waxaa kasoo baxaya timekii aad wax qori lahayd. marka 6daa qodob waxaan isleeyahay waa 6 qodob oo muhiimadeeda leh haddii aad rabto inaad noqoto qoraa amba aad tahayba